4 sano kadib shirweynihii Taleex ee lagu soo dhisay maamulka Khaatumo ayaa mar kale ismada deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn iyagoo isu dhan ay ku kulansan yihiin deegaanka Qoriley oo ka tirsan gobolka Sool halkaasi oo lagu nabadaynayo beelaha walaalaha ee dhawaan dirirtu ku dhaxmartay deegaanada Qoriley iyo Magacali kulanka hogaanka dhaqanka ee deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo ku wajahan nabadaynta beelaha walaalaha ee dhawaan mashaqadu ku dhaxmartay ayaa lagu muujiyay baahida loo qabo in mar kale ismadu ay isaga yimaadaan waxna iska weydiiyaan ayaha deegaanada ay hogaanka dhaqanka u hayaan ee Sool Sanaag iyo Cayn Garajaamac Garad Cali ayaa ka hor intuusan ka hadlin mowduuca ka hadalka ayaha deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn waxa uu ka warbixiyay halka uu marayo shirka nabadaynta beelaha walaalaha ee dhawaan colaadu ay ku dhaxmartay deegaanada Qoriley iyo Magacali hawlihii loo yimid ergooyinka faraha badan ay u yimaadeen ilaa Raas Kaambooni ilaa Raas Casayr ilaahay dadkii waa noo celiyay oo waa noo qabsoomeen oo ilaahay naguma ceebayn in ergada intaa la eg aanu u joogsan weyno oo ku ixtiraami weyno arinta khayrka iyo wanaagga ay u socdeen iyagu dhibaato ma yangeysan tol soo gurmaday bay ahaayeen annana ilaahay waa noo sahlay tolkii aanu hor joognay inay noo qabsoomaan tolkii iyo ilaahay hadduu kuu roon yahay tolkii u soo gurmadayba inay noo qabsoomaan noo joogsadaan nabaddii aanu u qaadnay ay xejiyaan oo ayan nagu ceebayn iyagoo wax dili kara inay ducadayadii qaateen oo ilaahay noo qabtay aad iyo aad bay wacan tahay haddeer xaajadu waxay maraysaa ciidankii waa la kala qaaday ciidamadii gurmadka ahaa xaggaana waa laga ceshay xaggana waa laga ceshay ciidamadii rasmiga ahaa uunbaa agaarkan jooga waa la dhex maray oo ergadu deegaamadii waa dhex martay u dhaxeeyay labada beelood taana in dhinac walbaaba uu baneeyay dhinacii kale waa la sugay haddeer waxaa lagu jiraa meeshii la isugu imaan lahaa xabad joojinta arinteedii waa laga gudbay iyo ciidan kala qaadistii garad dad badan waxay is weydiinayaan maadaama isimadii deegaanka kan ama indhaha deegaanada dadka dhulbaanta ay ku dhan yihiin halka kan fursadda tani ma noqon kartaa fursad isimada deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ay mar labaad ku saxaan wixii ka khaldamay taa maxaa loo sheegay ilaahay baynu ka rajaynaynaa inuu sidaa ka dhigo waa ka shaqaynaynay shirweynihii ballicad dhankiisana Garaad Maxamuud Cismaan Mashqare ayaa xusay inay jirto baahi loo qabo in mar kale la isugu jilib dhigo ay ka talinta deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn halka waxay isugu yimaadeen odayaashii dhaqanka ee Sool Sanaag iyo Cayn badankoodii ayaa isugu yimi waxayna u yimaadeen dhibta ka dhacday eeriyada tan hadda lagu sugan yahay ayay isugu yimaadeen si ay u dhameystiraan wax ku habboon haddii hawshaasi dhammaato waxaan ku ballannay in aanu shir gaar ah oo odayaasha dhaqanka ama isimada Sool Sanaag iyo Cayn ay kaga taliyaan aadaha iyo mustaqbalka deegaanadaas sida ku habboon waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay ku dhammaato isafgarad guul iyo sida la doonayo oo maaragtay ummaddu ay rabto sidoo kalena Garajaamac Garad Ismaaciil ayaa isaguna dhankiisa xusay in isu imaanshaha isimadu ay fursad u noqon karto in mar labaad wax la iska weydiiyo xaaladda deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn taas waa khasab weeye dabcan waa laga hadlaya waxa looga hadlo waayo dadku deegaankii wax ku yihiin dhulkii wax ku yihiin xaaladda aynu ku jirnaana de waxa la yiri reer hawd markuu guurayo haddaan ka ugu horeeyaan qaylin ka dambana qaylin ka dhaxna qaylin ugu kala luma tayna haysataa waa taa weeye marka khasab weey waa la wada hadlaya danta reerkan waa laga wada hadlayaa ni jaclaysigana waa la iska daynayaa wixii ummadda dan u abaana garanaysaa dadkana dan u ah dhanka galana gogosha uu fidiyay Garaad Saleebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud magaalada Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool ayaa waxa muuqata inay si uga yara biyadidsan yihiin ergada ka socota gobolka Mudug kuwaasi oo ergadii dhexdhexaadka ahayd ay isku dayayaan in ay ku qanciyaan in ergada Mudug ay soo aqbalaan gogoshaasi la dhigay magaalada Tukaraq Axmed Cali Faarax Kalsan TV
ilaa Sacanood.